intii quraanku kama tagin xataa dadka qaybaha caafimaadkooda jirka iyo nidaamkooda sixad iyo inuu ka waramo waata la yiraahdo aayad quraanka kamida waxay isku fuuqsatay ama daliil baa u noqonaysa qaybta caafimaadka bulshada ilaahay baa wuxuu wa kulu washrabu wala tusrifu una oo abba oo had gudbina cudurada maanta laga cabanayo laba daweyn kari laayahayba waa cudurada ka dhashay baa la yiraahdaa dherega iyo tarafka way ka dib badan yihiin kuwa ka dhashay faqriga iyo gaajada waba sidan ilaahay u sheegay cuno oo cab oo had gudbina markii la cunay ee la cabay ee dhan walba loo riday ee laga joojin waayay ayaa waxa ka dhashay cholesterolkii iyo dhiigkarkii iyo macaankii marka dhakhtarka u tagtay wuxuu ku leeyahay dawo ma jirto sheekhowe la saaxiib inta dhimanayso waaya معناها أكلوا وشربوا وأسرفوا أنت علينا عبين بكو إسرافين وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه قفك وحا فجانك أما ويلك وقول بقى طبضنا وبوحية علوش يسوون يدخلوا طعامي على طعامي يضر المعدة راشن كي هراء كتشراء كدن بل لقد دول قليا علاش انبور دبابو النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان اختارك وقصوق بدنا الدنيا ده وكا كور رما سيدا اللي قد دوينا يعنده حنونك انت سو عنا waa laga ilaalinaya inta soo cunana waa loo isticmaalaya tartiibta cunada iyo meeliskaaga sida oo habe iyo diet-kaaga ka waxa ka warrama kii dawada iyo antibiotic inta la soo dhaafay kaasa ugu suuq badan iminka